السلام عليكم. مقعيسا oo dhammaystiran waa Xuseen ibn Cabdullah ibn Xasan ibn Ali ibn Siina. reer galbeedkana waxay ugu yeeraan Siina. wax kale oo loo yaqaanay amiirkii dhakhaatiirta waxa uu dhashay sanadkii 980 miilaadiga waafaqsan 370 hijriga. waxa uuna ku dhashay magaalada Afishoona oo ka tirsanayd Bukhara, waana dhulka hadda loo yaqaano Uzbekistan. waxa uu ahaa caalim muslim ah kuna takhasusay cilmiga caafimaadka. wuxuu kale oo ahaa FALISOOF, gabiya cilmiga xidigiskana wax ka yaqaanay. caalimku wuxuu noolaa casrigii dahabiga ah ee islaamka, wuxuuna qoray ku dhawaad 240 kitaab, badankoodna waxa uu kaga hadlay cilmiga caafimaadka. waxaana ugu muhiimsanaa uguna weynaa buugaagtiisa buuggiisa la dhaho qaanuunu dibbi ama buugga daawada. faylasofnimada marka la fiiriyo Siina waxaa la soo wariyaa in ibn Siina uu daaweeyay nin bukaan ah oo qaaday xanuun dhimirka ah oo isku arkay inuu yahay nin lo ah. wuxuu dadka ka codsan jiray inay gowracaan, haddii aynan gowracin inuu cunayn. ibn Siina ayaa ku yiri ninkii lo'da ahaa, lo'dan waa caato, si loo gowraco waa in muddo la baanto, cunno badan la siiyo. ninkii bukaanka ahaa ayaa waxa uu bilaabay inuu cunno fara badan uu cuno. kadib ibn Siina cunadii ayuu waxa uu u raaciyay daawooyin dhimirka daaweynaya. ibn Siina waxa uu ku dhintay magaalada Hamadan ee ku taala dalka Iran sanadka markuu ahaa 370 miilaadiga waafaqsan 428 hijriga, maalin Rabadaana. waxa uuna ka mid ahaa maskaxdii muslimiinta kuwoodii ugu saamaynta badnaa. waxaanu leenahay wuxuu uu ka tagay Ilaahay qabrigiisa waasiciyo, islaamkana ciisadiisa kor ha u qaado. fadlan haddaad muuqaalkan wax ka korsatay subscribe-ka, leeg iyo share-ka waa noo muhiim. salaamu calaykum.